فلوس الصلاة وبرنامج dadka lagu fahansiinayo in dadka maanta jooga hadii la oran lahaa halkii salaad waxa la idinku siinayaa lacag dadkoo dhan ay wada tukan lahaayeen qoyskan waa aabba iyo saddexdiisa wiil oo la kala yiraahdo Maxamed Yaasir iyo Xasan aabaha waxa uu caruurtiisa la jeclaa wanaaga khayrka iyo salaada waxa uu mar walba dib ka mari jiray oo kicinta salaada subax balse iyagu aad ay u dibsan jireen aabahood maalin maalmaha kamid ah ay isku soo qaadeen salaada iyo umuuraheeda waxayna hadalladooda kamid ahaa in salaada uu nacsiinayo aabahood balse waxa aaga ka dhawaa aabahood oo dhageysanayay hadalka ay ku hadlayaan waxauna aad uga xumaaday hadallada ay caruurtiisu isdhaafsanayaan لا حول ولا قوة إلا بالله وإيش أسوي عشان أحبب أولادي للصلاة على خير إن شاء الله maalin ayuu iskugu yeeray aabihii wiilashiisii waxa uu u sheegay ruuxii ilaaliya salaada subax uu helayo 100 riyaal maalintii bishii uu sidaas ku heli doono 3,000 oo riyaal arrintan aad ayay uga farxisay wiilashii أنا أعترف إن كان أسلوبي خطأ لما كنت أجلسكم حق صلاة الفجر ومن هذه اللحظة أنا ما راح أجلسكم وكل واحد يعتمد على نفسه بس اللي يجلس يصلي صلاة الفجر أنا بعطيه 100 ريال عن كل يوم يصلي فيه صلاة الفجر بدون ما أجلسه يعني يا يبا إذا صلينا صلاة الفجر في وقتها تعطينا 100 ريال عن كل يوم؟ لا بعطيكم 3,000 ريال دفعة واحدة نهاية كل شهر قولوا لي ليش؟ ليش يبا؟ إيه قلت لي ليش؟ عشان اللي ما يصلي صلاة الفجر في وقتها بخصم عليه 100 ريال عن كل يوم waxayna isku diyaarinayaan sidii ay ugu kici lahaayeen salaada subax waxay soo iibsadeen saacad toosisa habeenkii Yaasir waxa uu walaalihiis ka codsanayaa inay toosiyaan hadii ay kicin waayaan ay biyo wajiga uga shubaan Allahu akbar waa xilligii salaada subax adinkeedii la joogo balse kuma ay kicin salaadii adinkeeda waxa hadda soo dhawaaqday saacadii waxay ku kaceen saacadii حسن يلا قوم waa maalintii koowaad Maxamed iyo Xasan waa loo saxay inay maalintii koowaad tukadeen salaada subax balse waxa jiifa Yaasir waxa ay u sheegeen in xilligii salaada la joogo balse wuu kici waayay waxay xasuusiyeen 100 riyaal waxa uu u degdegay in salaadu dhaafin si maalintaas 100 riyaal uu u helo صبحك الله بالخير يبا. صبحك الله بالنور أبوي كم باقي على طلوع الشمس يبا؟ في وقت أبوي يمديك تصلي maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa kulmay Maxamed iyo saaxiibkiis waxa uu u sheegay in maalintii uu helayo hadii uu salaada subax tukado 100 riyaal bishiina 3,000 oo riyaal halka sanadkii uu ka helayo 36,000 oo riyaal Maxamed saaxiibkiis waxa uu ahaa nin wanaagsan oo khayrka la jecel saaxiibkiis waxa uu u sheegay ma waxaad u tukanaysaa lacag u tukan maysid miyaa inaad hesho raalli ahaanshaha Allah Maxamed waxa uu fahmay xaqiiqada salaada habeenkii waxa uu kacay kol hore inta ayna soo qaylin saacadu waxa uu gabi ahaanteed badamiyay saacadii waxa uu galay salaad waxa uu xasuustay hadalkii saaxiibkiis ee ahaa
ha u tukan 100 riyaal ee u tuko inaad alle ugu dhawaato. استنى قبل ما تكبر شوف نيتك للصلاة، صلي لله ولا عشان 100 ريال؟ أصلي صلاة الفجر قربة إلى الله تعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأذان والإقامة إذا أردت أن تعلم مستوى الإيمان عند إنسان ما فانظر إلى حالته عند الأذان. المؤذن كم مرة يقول حي حي يعني أقبل عجل على صلاتك. محمد wax badan ayaa iska bedelay waxa uu bilaabay dhageysiga quraanka muxaadaro